السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan asxaabteyda waxaan la wadaagayaa maanta muuqaalkan kooban. muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay qabuuraha muslimiinta ee magaalada Barnesville ee magaalada gobolka Minnesota. halkan waa qabuuraha muslimiinta. qaybtaas aad u jeedaan oo dhan waa qabuuraha muslimiinta. dadka muslimiinta ayaa lagu aasaa ilaa halkaas aan ku hayo kamerada oo dhan. laakiin dhinacaan hadda geedgaab kale waa qabuuraha gaalada. wadadana u dhaxaysa dhinacaas oo dhan waa qabuuraha gaalada. dhinacaas gaalada ku aasan, wadadana u dhaxaysa. laakiin dhinacaan hadda aan ku qabanayo waa qabuuraha muslimiinta. laakiin maanta waxa aan rabo in la wadaago waxay tahay oo aan halkan u imid runtii sida waxaan halkan u imid horta marka hore meydaan wadnaa. aba Soomaaliyeed ayaa maanta halkan ku geeriyooday. halkan ku aasaynaa naxariistii janno Allah ka waraabiyo. qaybtan hadda aan kamerada kusoo qabanay kasoo gudbaynay way buuxsantay. halkaas qayb ah hadda qaybta naga horeyso geedaha waaweyn ay ka muuqdaan ay dadku sii socdaan. halkaas ayaa lagu aasayaa meydka maanta aan wadno waa aba Soomaaliyeed. ilaahay naxariistii janno ha siiyo. runtii qabowgu aad ayuu u daran yahay. waa -8 ama -8 yani darajada qabowga wuxuu ka sii hooseeyaa 0.8 oo ka sii hooseeyaa. annagana waa xirxirannahay afka iyo gafuurka iyo meel kasta wayna xirxiran tahay. haddii kale freezana dadku noqonayaan, qof walba wuu qaboobaya. marka sababta maanta aan videogan u duubaa wuxuu yahay halkan aad arkaysaan waa qabuurihii barafa ka dulmaray. waxaan isleeyahay ilaa 8 ilaa 9 feet ayuu barafu ka dulmaray. markaad dhex istaagto ilaa wuxuu kugu tagayaa bowdyaha uu kugu tagayaa ilaa يعني إيش معوستي ماشي laga xirto ama suunka ayuu tagayaa. halkaas ayaa dadka muslimiinta ku aasan yihiin iyo gaaladii oo isku barbar aasan. runtii waa aad arrin u xanuun badan. waa kana meydka maanta anagu aan keennay. ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo, annagana gadaashiis ilaahay nama fidneeyo. marka meeshan aan usoo ordayno oo loo soo tahriibayo oo qaarkeen ay badda ugu dhimanayaan, qaarkeen saxaraha ugu dhimanayaan, qaarkan ay Liibiya ugu silcayaan waa halkan meesha la isku aaso. barafkaasa la isku aasayaa. wallaahi meydkan ilaahay naxariis janno ha siiyo waxay ahayd shalay in la aaso. qabow dartiisa loo aasi waayey. maanta marka waxaa la yidhahda 2 maalmood meyd inuu yaallo suurtagal maahan. waa inaan aasno. saasaan maanta lagu soo qaaday. xataa maanta lama soo bixi karin. waa kana meydka godkan waa la qoday. baraf afa ka daboolay. meel walba baraf ka daboolay waa ujeedaan. runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad u xanuun badan. aniga quusi ay gelisay runtii. meesha dad badan aan keenay, dad badan wax ka keenay, dad badan wax uga aasay. laakiin maanta waxay igu ahayd maalintii igu naxdinta badneed. macnaha barafka meel walba ka kormaray. xataa carradii godka laga bixiyey intii oo meydka la soo waday barafaa ka dulmaray. hadda saacadan aan meesha joogno wuu da'ayaa barafku. qabow waa kasii daran. yacni qof banaanka taagnaa kara ma jiro. waa soo kogaysaa adiga dhan daqiiqadaha waxaad ku noqonaysaa adiga dhan freezing. sanka, faraha, bushimaha waa inta dadka yani ka soo jeedo banaanka way ku qallalayaan. xitaa inay kugu yaalaan war uma haysid. marka waa meesha noocaana meeshaan usoo ordayno. waa meesha noocaana meesha dalkeennii iyo dadkeennii iyo nolosheenii aan uga soo haajirayno. runtii dhinac kale marka loo fiiriyana way iska jirtaa dhibaatadaasi oo wadankii shaqo ma lahan, amni ma jiro. laakiin wallaahi meesha loo soo socdo ayaa ka daran. meesha loo soo socdo ayaa ka daran. ilaahu qof aad jeceshahay Maraykan ama Yurub ama qurbo sidaan ah ilaahu ha ku dil. wallaahi saasaan Allah shala ku ducaysanayay. yacni waa kaas hadda meydkii godkaa la gelinayaa qaabkii annaga aan u xabaali jirnay.